soo noqon doona waxaan siinayaa xildhibaanada Maryan Cariif maadaama ay sheegtay in loo baahan yahay in la aado maxkamadda dastuuriga maxkamadina aanay jirin sida uu sheegay xildhibaan Goodax ma tahay arrin u furan in maxkamadda sare ay qaadi karto ama baarlamaanka laftirkiisa lagu soo celin karo inuu go'aan ka gaaro arrintaas oo kala qaybinayna Falastiin runta su'aasha la kala qaadayna in maxkamadda sare la geeyo bacdama aysan maxkamadda dastuuriga jirin iyo in baarlamaanka maxay ahayd asagu lagu celiyo labadaba way ka go'daa buu yiri ninka liyaahdo Goodax saxiibkii Goodax waxaan leeyahay baarlamaanku waa dacwad ooge adiga dacwad soo oogto haddana adiga ma noqon kartid dacwad qaade ma noqon kartid adiga jadka adiga isla markaasna ana xukunku sidaayo ma dhiibto marka baarlamaanka horta meesha ka saar gudoomiyaha baarlamaanka shaqo ku lahayn baarlamaanka guud aan shaqo ku lahayn arrintan waa maxkamad la ogiyo baarlamaanku marna waa dacwad ooge marna waa dacwad qaade labadaas isku heli karo taas horta koo waay tan labaad waxa waaye maxkamadda sare oo dalka jirta iyo maxkamadaha guud ahaan hadda waxaa la rabaa isbedel in lagu suubiyo bacdama shacabka Soomaaliyeed aysan maqsuud ka noqonin maxkamadaha Soomaaliyeed si ay u shaqeeyaan shacabka guud oo Soomaaliya jooga uusan maqsuud ka noqonin waxaa la rabaa in isbedel lagu suubiyo marka qolo iyaga isbedel uu ku socdo haddana masiirka dalkan gacanta inta idin gelinaa saan farmasiyeynaa warkaas war soconaya aniga lama aha arrinta maxkamadda dastuurka xataa waxay dib ugu dhacday oo maxay magacaabida dadkii loo magacaabi lahay koox maxkamadda dastuurka loo magacaabi lahay dib ay ugu dhacayso waxaa la rabaa dad aad looga fikiray aad loo soo xulay Soomaali isugu tagtay meel kasta laga keenay qof 450 qofood la keenay 450daas qofood markaas intii maxkamadda dastuurka qaba lahayd dadka Soomaali oo qiimaha badan leh oo ugu hufnaanta badan leh oo ugu Soomaalinimada badan leh oo ugu sharci aqoonka badan leh oo ugu wanaagsan inay noqdaan la rabaa maxaa yeelay waxa la isku haysto waa qadiyadii ugu sarreeyay dalka oo dalka laftiisa khalkhal siyaasadeed iyo dhibaato iyo wax ay ku soo wajihi karto haddii si sahlan loo qaado marka waxaan qabaa maxkamadda sare ee hadda jirtana lama geey karo baarlamaankuna shaqada kuma leh oo asagu waa muddaci marka xaakimka ma noqon karo waa maasantahay hay xildhibaan Goodax haddii maxkamadda dastuuriga ay jirin maxkamadda kalena eedaheeda iyo ciladaheeda ay leedahay oo dadka qaar guriyihii lagu murma xataa ay adagtaa mararka qaar inay maxkamadda go'aan ka gaarto arrintan yaa ula tagaysaan oo xalinayso ma ahan arrin qalqalka sii badinaysa laakiin aan xal ka soo bixinin waa maasantahay runtii xildhibaan Maryan argumentigeeda yani doodeeda waa dood muuqato oo caqli galay laakiin waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed xasuusiyo wadankeena duruuf buu ku dhex jiraa duruuf adag buu ku jiraa waxa aan haysano waa waxa aan haysano maxkamadda sare waa maxkamadda sare oo shaqayso yani cidna ma dhihi karto maxkamadda sare يعني بدن كذا في عنين ساجرات ما شقين كرت الله ما بيصير وفي عنتاي محكمة الصلاة وواحد عن لين معي وواحد الرواح دي إن فيها جاجية يعني ما لها جاجية لكن مدحوينه جوجا يا محيا لمحكمة الصلاة أيام يعني كير سدحات الدولة ها هو قرصورك أيها وحاكوس عطو الشخصات جرادة وحمطرا كران أرجمنت صح معها حدي في تاريخ ده أنفقين مدحوينها لبتكيز الوصوة دورتي وحي هاد دستور كان نفسده وقبه إنه يدورتان لما قولي قولها شعبك هاد الجرو يقولها سندك إنه يدورتان أو أنجرين waxaa la doortay hal gobol doortay maxay duruufta markaas jirta ayaan fiirinay baarlamaankan laftirkiisa ayaa doortay madaxweynahan iyadoo baarlamaanka kala jiray marka marnaba madaxweyne aan dalka u qalmin maxaa yeelay maxkamadii oo asugu dhisi waayay ayaa maqan saas daraadeed meel buu iska fadhinayaa waxa uu sameeyay iska sii sameeyay macna ay sameeyay malaha
wadanka sharciga leeyahay sharciga yaalana nagu filan taasaan ku dhaqmayno waa ma santa waxaan siinaa professor Xuseen Warsan oo barlamaanku uu noqdo maxkamad oo u dhaqmo nooceed ma aha markii horeysay marka laakiin go'aankeeda hadda uu dhabtu ku saaran yahay guddoonka barlamaanka waa ma santa waxaan siinaa professor Xuseen Warsan haddii xildhibaanada hadda mooshinka gudbiyay oo uu kamid yahay xildhibaan Goodax ay meesha taagan yihiin maxaa cawaaqiba oo ka dhalan kara arintan waxyaabihii asaasiga u ahaa dacwadan inay sharci noqoto oo ay fushana dulduleelo badan ay hadda leedahay halka muxuu noqon karaa maxaa ka dhalan kara horta midba uu anfilay uu ku saxan yahay Goodax oo ah kolba wixii haysato ayaa khilaafka lagu xilaa lamana oranayo hadii ay dawladdu oo wasiirkii ma garanaysa iyo umuraha keeni waayeen inay maxkamadii dhisaan marka maxkamadii cid ay qabanaysay waa laga dhaafaya damigaas ku dhacdo marka kulliyo guddoonka baarlamaanku isaga horta waxa laga rabaa waa rune inuu wixii maxkamad jirto uu gudbiyo maxkamaddu gudbini kulli sare ayuu gudbini iyadoo marka ama ha tiraado ana awood ma leeyahay ama aqoon inaan maqli karo oo arinta dhageysan karo ama inta iyada sida waranayso